hore ma u maqashay gabaraymaanyo ma aaminsan tahay inay jirto gabaraymaanyada haddaba waxaan maanta idin la wadaagi doonaa qiso dhab ah oo dhacday kuna saabsan gabaraymaanyadu waxay ka mid tahay waxyaabaha yaabka leh ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala abuuray dadka badanaana ma arkaan gabaraymaanyadu waxay qaybta sare ee jirkeeda uga eg tahay sida gabar caadi ah qaybta hoosena waxay uga eg tahay kalluun ama malay timaheedu waxay u eg yihiin dahabi intaas haddaan kaga soo gudubno sharaxaadeeda kooban aynu muuqaalkeena hore u sii galno intaynaan muuqaalka bilaabin waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalka lana wadaagto saaxiibadaada haddii aad nagu cusub tahayna inagu soo biir oo gambaleelka furo mahadsanid maalin maalmaha ka mid ah nin kalluumaysato ah ayaa waxa uu badda ku tuuray shabaqii uu ku jilaaban lahaa wax ayaa u soo galay shabaqii waxa uuna isku dayay inuu soo jiido shabaqii oo uu banaanka keeno banaankii ayuuna keenay waxa uu xaqiiqsaday inuu maanta qabtay gabaraymaanyadii uu maqli jiray magaceedii oo qura gabaraymaanyadii ayadoo shabaqa ku jirta ayaa waxa ay bilowday inay ooydo oo ay ilmo badan ka soo daateen indhaheeda waxa ay ka codsatay inuu ku celiyo badda ee uusan suuqa u iibgeyn ninkii kalluumaysatada ahaa qalbigiisa waxaa gashay naxariis oo waxa uu go'aan ku gaaray inuu badda ku celiyo baddii ayuu ku celiyey asigoo u baahan inuu helo quutulyoomka maalintaas uu gurigiisa ku biili lahaa way u mahad celisay gabaraymaanyadii ninkii kalluumaysatada ahaa waxaa ka soo wareegatay maalmo aad u badan ninkii kalluumaysatada ahaa waxa uu yimid baddii waxa uuna shabaqii ku tuuray badda dhowr jeer maantana way ka gedisan tahay maalmihii hore waxba waa uu soo qaban kari waayey waxaa loo dhawaaday gabaldhicii ninkii waxa uu dareemay murugo aad u badan meeshii uu joogay ayaa waxaa u timid gabaraymaanyadii maalintii uu qabanayay waxayna dareentay in odaygu uu dareemayo murugo aad u badan waxayna ku tiri waxaan ahay gabaraymaanyadii maalin hebel aad badbaadisay ee maxaa ku helay ii sheeg waad murugaysan tahee waxa uu u sheegay inay ka gaajaysan yihiin xaaskiisa iyo carruurtiisa oo in muddo ahba uusan u helin wax biil ah waxayna ku tiri xoogaa isug waxayna gashay baddii ninkii meeshiisii ayuu sii fadhiyey saacado dhowr ah waxa uu qalbigiisa gastay inaysan soo laaban doonin gabaraymaanyada oo ay been u sheegtay asigoo naftiisa la sheekaysanaya ayaa waxaa u timid gabaraymaanyadii waxayna gacmaheedii ku waday kiishash ay ku jiraan dahab dhayman iyo luul waxayna siisay wixii kiiskaas ku jiray oo dhan waxayna ku tiri qaado oo iibso waa uu soo qaatay ninkii maalintaas kadib waxa uu ka mid noqday dadka ugu taajirsan magaaladaasi qisadan waxaynu ka faa'iidaynaa waxyaabo badan oo qiimo leh taasi oo ay ka mid tahay haddii aad wanaag samayso aad helayso beddelkiisa oo wanaag ah sidoo kale samafalka aad noolaha dunida guudkeeda saaran aad u samayso aad ka helayso abaalmarin midaas mid ka qaalisan waxyaabaha kale ee ugu muhiimsan ee aynu qisadan ka faa'iidayno waxay tahay in oofinta ballantu ay tahay wax muhiimsan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa muuqaalkeena maanta haddii aad ka heshay like saar muuqaalka lana wadaag saaxiibadaada mahadsanid sidaa iyo nabadgelyo